wanaagsan daawadayaal halkan waa dunida telefoon ku soo dhawaada barnaamij kooban oo ku eegayno wararkii ugu dambeeyay ee wadanka Itoobiya qodobada aan soo qaadan doonana waxa kamid noqon doona ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo wafdi balaaran oo uu hogaaminayo oo tagay magaalada Djibouti caasimadda Djibouti halkaasna lagu soo dhaweeyay xilli maalmihii la soo dhaafay wada hadal u dhaxeeya TPLF iyo dawladda uu ka dhacay halkaasi laguna soo kala kacay haddana loo qalab aruursanayo mid labaad oo halkaasi ka dhac kale oo aan halkan idinku soo gudbin doon dagaalada ka socda waqooyiga wali waa ay sii socdaan deegaanada maxarada si gaar diyaar garow ayaa ka jira kooxda TPLF ay doonayaan inay kala hortagaan halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doon urur goboleedka midowga Yurub iyo sidoo kale dhammaan wadamada caalamku waxay soo dhaweynayaan wada hadal in la galo Eritrea waxay ugu baaqayaan inay iyadu arintan ka dhaxbaxdo laakiin ma yeeli doonta arintaas iyada halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doona qodobadaas muuqaalkan saaxiibadiina la wadaag waana ku mahadsantiin saaxiibayaal aragtiyadiina iyo fikradaad halkan mar walba noogu soo gudbisa aan ku bilow ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa uu gaaray wadanka Djibouti kadib markii uu ka safray wadanka Kenya safarkaasi oo uu ra'iisul wasaaruhu horay kasii socday kuna tagay wadanka Djibouti madaxweynaha wadankaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ay la kulmeen wafdiga ra'iisul wasaaraha uu kamid ahaa fayeenka aqalka federationka ama aqalka sare wadanka Itoobiya agnaha tashagar iyo xubno kaleeto waxayna wadanka Djibouti kala hadli doonaan arrimo dhowr ah oo la xiriira xiriirka labada wadan iyo waliba sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga ay wadamadaasi leeyihiin sidoo kale maalmihii la soo dhaafay ayaa waxa jirtay in Djibouti ay doonaysay korontada wadanka Itoobiya oo wadamo dhowr horay ay uga soo jiiteen inay iyaduna isticmaasho ayna soo jiidato midaasi oo daweyn oo dhinaca dhaqaalaha ugu jirta wadanka Itoobiya halka Djiboutina ay ugu jirto daweyn oo dhinaca korontada caqabado kala duwan ayaa mar walba ka jira jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya waxa kale oo ra'iisul wasaaraha la filayaa in uu halkaasi garwadeen ka noqdo ama uu isku dubarido wada hadallo la filayo TPLF iyo dawladda federaalka in ay dhaxmaraan inkastoo ra'iisul wasaaruhu san qayb ka in wada hadalladaasi una miiskana soo fariisan doonin ilaa mar dambe laakiin haddana sidaasi ay tahay waxa laga maarmaan ah isku dubaridkooda iyo isku aadinta dhinacyada iyo sidii wada hadalladaasi ay si toos ah ugu bilaaban lahaayeen kuwaasi oo maalmaha soo socda la filayo inay wadanka Djibouti ka bilowdaan midowga Afrika gaar ahaan madaxweynihii hore ee wadanka Nigeria Obasanjo oo ah ergeyga gaarka ee nabadda ee midowga Afrika ayaa arintaasi ka shaqeynaya isagoo garab ka helaya xubnaha kaleeto ee beesha caalamka oo ka mid yahay Makamar danjiraha ee geeska Afrika u qaabilsan wadanka Mareykanka ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa tan iyo markii uu dagaalku cusboonaaday waxa uu safar ku tagay wadamada Algeria, Kenya iyo Ethiopia kuwaasi oo dhamaantood uu kala hadlay arrimaha xiriirka iskaashi ee ay leeyihiin iyo sidii loo sii horumarin lahaa intaba dagaalada ka socda waqooyiga wadanka Itoobiya iyaguna waa ay sii xoogeysanayaan waliba saacadihii la soo dhaafay sida barnaamijyadii hore aan ku tabinay duqeymo ayaa dheeraad kooxda TPLF waxay sheegeen in dad rayid ah isbitaalka Referral Hospital ee ku yaala magaalada Makale in ay ku geeriyoodeen ama la keenay dad dhaawacyo ah waxayna sheegeen in maalmihii la soo dhaafay magaalooyin ku hareereysan magaalada caasimadda oo ay Makale ay dhibaatooyinkaasi la kulmayeen diyaaradahan duuliyaha lahayn ayaa mina subaxda horeeto oo cidnaba aysan kicin duqeymo kala duwan ku ekeynayay goobo kala duwan oo deegaanada Tigreega gaar ahaan magaalooyinka waaweyn waxayna dawladda federaalka doonaysaa in ay ku absi geliso xogaga TPLF waxay dawladdu ku eedeysay TPLF inaysan nabad iyo wanaag midna doonaynin kaliya waxay quutaan dagaalka yahay sidoo kale kooxda TPLF ayaa sheegtay in dawladda federaalka Itoobiya iyo Eritrea oo iskaashanaya ay dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan ku hayaan deegaanadooda iyo dadkooda dagaalada waqooyiga wadanka Itoobiya ka socda wali waa ay taagan yihiin waxayna dagaalo culus ka socdaan xuduuda u dhaxaysa deegaanka maxarada
iyo kan Tigreega iyo gobolka lagu muransan yahay ee Walqayd sidaas la mid ah xuduuda wadanka Ethiopia uu la wadaago dhinaca wadanka Suudaan dagaalo culus ayaa ka socda. Eritrea oo dhinaca dambe ka soo gashay ayaa iyaduna dagaalo xoog badan saacadihii la soo dhaafay kuwaas oo aad moodo inuu siyaasad fawarkii ku minjaxaabinayo wada hadallada oo uunan isagu marnaba raali ka ahayn. Abiy Ahmedna dhowr jeer uu sheegay inuu ku garabsiinayo dagaalka uu iska dayo fulaysanida oo nimankan iska celiyo kali ana markay aqbalaan hubka dhigis iyo dagaalka oo ay ka gudbaan uu ka aqbalo isaguna in ay arintaas iyada joojiyaan. laakiin sidaas oo ay tahay wali arrimaha la xiriira dawladda Ethiopia in aysan ka quusanin wada hadallo way taagan yihiin waxaana jira in wadamada caalamku ay si weyn u soo dhaweeyeen wada hadallada iyaga oo digniino ka bixiyay dhinaca dagaalada dawladda Eritrea ugu baaqay inay faraha kala baxdo dagaalka ka socda waqooyiga wadanka Ethiopia. laakiin siyaasad fawarkii ayaan isagu dhag jalaq u siin doonin umurahaasi maadaama uu isagu cadaawad sare oo muddo soo jirtay ay kala dhaxayso dawladda Ethiopia gaar ahaan kooxda TPLF oo xukunka 27 sano haysay lana og yahay dagaaladii baadhama iyo waxaabihii ka dambeeyay ee dhexmaray Eritrea iyo dawladda Ethiopia. dhul deegaana oo hore xoog uga haysatay dawladda Ethiopia gaar ahaan maamulkii Tigreegana waa uu celiyay kadib markii uu xukunka la wareegay ra'iisul wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo xiriirka caadiyay markii uu horeysay ee uu yimid wadanka Ethiopia. dagaalada waxa dheer qoomiyadda Amxaaradu in ay iyaduna dhinac u tumanaysa hawsheeda waxaana jira ciidamo tiro badan oo dufcado kala duwan oo tababaro loo soo xirayo kuwaasi oo markaaba lagu daabulayo dhinaca furimaha waxayna doonayaan in ugu yaraan gobolkan lagu muransan yahay ee Walqayd ay difaac xoogan ka xirtaan. qoomiyadda Amxaaraduna waxa ay maadaama oo dawladda hadda xubno muhiim ah ay ka haystaan tusaale ahaan Agnaha Tashagar oo ah afayeenka aqalka federationka horeyna u ahaa madaxweynaha deegaanka Amxaarada ra'iisul wasaare ku-xigeenka wadanka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale oo muhiim ah maadaama ay leeyihiin waxay isku dayayaan in dawladda ay ka dhaadhiciyaan in dagaalkan iyaga loo daayo dawladuna ay daaha gadaashiisa hawsha ka wadato halkii iyaga lagu eedayn lahaa. midaasi ayay hadda dadaal xoogan oo xeeladaysan ugu jiraan laakiin ka aqbalida Abiy Ahmed iyo dawladdiisa waxa ay noqon doonto lama oga guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda iyo xiisadahan isbarkan ee marka ka dambaysa si kordhayana waxa aad moodaa in ilaa iyo hadda aysan fare ka qodnayn dagaalka waqooyiga wadanka Ethiopia ka socda. dawladdu wali abaabulka iyo is-adkeynta way sii wada. TPLF sidaas la mid beesha caalamku waa ku daashay midowga Afrika iska badaa haba sheegin sidoo kale qoomiyadaha qaar ka mid ma doonayaan nabadda sababtuna waxay tahay dani uguma jirto. Eritrea ka sii daran oon doonaynin nabad ay TPLF daris ku ahaadaan waana midda keentay hadda dagaalada culus ee socda iyo inay cid walba TPLF u aragto cadow aan arxan u hayn. waad mahadsantiin.